waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno sababta ay Iiraan ku macnaysay inay xilligan ciidankeeda ku soo ballaariso xuduudda ay la leedahay dhulka ay Azerbaijan dib u qabsatay halka sidoo kalena aynu isla barnaamijka ku xusi doono warbixinihii ugu dambeeyay ee colaadda Karabakh macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka jamhuuriyadda Iiraan ayaa ciidamadeedii dhulka ku soo ballaarisay xuduudda ay la leedahay dhulkii Azerbaijan ee dhawaan dib loo xoreeyay gaar ahaan mandaqada 25aad ee kulaalaysa waqooyiga webiga Arak waana xilli ay Iiraan intii dagaalku soconayay oo dhan bartilmaameedsanaysay diyaaradaha droonta Israa'iil ama Armenia ha wadato ama Azerbaijan iyadoo diyaaradaha droonta ee Israa'iil samaysay ee labada wadan ay haysteen ee Iiraan soo ridayna lagu qiyaasay 10 diyaaradood kuwaasoo laba ka mid ay ku dhaceen gudaha Iiraan suuragalna ay tahay inay ka faa'iideyso macluumaad badan oo la xidhiidha tiknoolajiyadda diyaaradahaasi ku rakiban iyo qaabka ay u farsamaysan yihiin ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay ciidamadooda ku fidiyeen xuduuddaasi si ay u gutaan waajibaadka ka saaran ilaalinta amniga qarankooda taliyaha ciidanka dhulka ee ilaalada kacaanka Iiraan General Mohammed Bakabuur ayaa waxa uu sheegay in ujeedada laga leeyahay dhaqaaqan ciidankoodu sameeyay uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida xuduudda taasoo qayb ka ah buu yidhi maslaxadda guud ee jamhuuriyadda Iiraan generaalku waxa uu caddeeyay in dowladdiisu ixtiraamayso xuduudaha dawliga ee wadamada jaarka laakiin ay isbeddel kasta oo juquraafi siyaasadeed oo yimaada u arkayso khadka cas ee lama taabtaanka xilli uu booqanayay xeryaha ciidamadiisa ee ku yaala mandaqada xuduudda ee gobolka Khadraviin ayaa generaalku waxa uu sheegay inay tan iyo markii ay colaadda Karabakh qaraxday ay ciidamada Iiraan isha ku hayeen colaadda soona kordhinayeen joogitaankooda xuduudda waana xilli sidii aynu barnaamijkeennii kan ka horreeyay ku sheegnay ay colaaddu si kulul uga hugmayso gobolka Nagorno-Karabakh taasoo dhex maraysa ciidamada Armenia iyo kuwa Azerbaijan colaadda oo culayskeedu soo kordhay labadii maalmood ee wadahadallada dagaalka la xidhiidha ka socdeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaana jirta in iska horimaadada iyo duqeynta la isdhaafsanaya ay axadii maanta si siman uga socotay dhammaan furimaha dagaalka militariga Azerbaijan waxa ay sheegteen inay dagaalada axadda ku burburiyeen tiro ka mid ah hubka ciidamada Armenia sida taangiyo madaafiicda goobta iyo gawaarida lagu daabulo ciidamada iyagoo dhanka kalena caddeeyay inay Armenia iyaga ku soo riday qoryaha waaweyn ee madaafiicda laakiin ciidanka Azerbaijan waxa inta raaciyeen inay si caadi ah u gudanayaan hawshooda maalinimo ee dagaalka dhul hor lehna ay qabsadeen warfidiyeenno militari oo madax bannaan oo ku sugan furimaha dagaalku waxay sheegeen in guutadii 543aad ee ciidamada Armenia oo ka dagaalamayay furinta Kobadi ay dib uga baxeen halkaasi oo gaadiidkoodiina xidhiidhsadeen kadib markii ay xamili kari waayeen duqeyn dhanka madaafiicda oo kaga imanaysay ciidanka Azerbaijan magaalada Stepanakert ee xarunta u ah Nagorno-Karabakh ayaa iyana habeenkii xalay ee axaddu soo gelisay la kulantay duqeyn khasaare u geysatay dhismayaasha qaarkood ciidamada Armenia waxa ay sheegeen inay hakiyeen oo ishortaageen weerar ay ciidamada Azerbaijan ku doonayeen inay hore ugu soo gudbaan deegaano ka mid ah mandaqada Hadrut iyagoo dhanka kalena ku eedeeyay Azerbaijan inay duqaysay tuulooyin iyo meelo dhulbeereeda oo ay dad rayidihii ku sugan yihiin colaadda Karabakh ayaa dib u qaraxday dhammaadkii bishii Sebtembar ee la dhaaftay taasoo u dhaxaysa jamhuuriyadaha Armenia iyo Azerbaijan oo ka wada tirsanaan jiray dalweynihii midowgii Sofiyeeti iyadoo wixii xilligaa ka dambeeyayna ay fashilmeen isku dayo lagu doonayay in lagu qaboojiyo jamhuuriyadda Azerbaijan ayaa ku adkaysanaysa in xabadda lagu joojinayo oo keliya
haddii ay armeniya si duuduuba uga baxdo gobolka nagorno karabakh oo ay qabsatay sannadkii 1992 ama inay soo bandhigto jadwal taariikhaysan oo damaanad qaad leh oo ay kaga baxayso halka.